labadan horjooga oo kooxda al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada miinooyinka gobolka banaadir iyo shabeellada hoose ayaa kala ah maxamuud goobe raaga jiisow daarikh iyo muuse kooble oo ku-xigeen u ahaa daarikh. muuse kooble iyo 6 dhagarqabe oo kale oo miinooyin ka soo qaaday deegaanka toorotoro ayay 28kii bishii saddexaad ee sanadkan kula qaraxday deegaanka basro ee gobolka shabeellaha dhexe. intii aysan qaraxyada ay shacabka ku xasuuqi lahaayeen gaarsiin goobihii ay u wadeen. maxamuud daarikh ayay isna ku dileen ciidanka xoogga dalka deegaanka bariire halkaasoo jab xoog leh lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka kooxda al-shabaab markii ay isku dayeen inay soo weeraraan fariisimo ay ciidanku leeyihiin. labadan horjooga ayaa ka geystay muqdisho iyo labada shabeelle tacadiye ka dhana bini'aadanimada waxayna qaraxyo ay si dhagara ku soo geliyeen muqdisho la bartilmaameedsadeen shacab aan waxba galabsan iyadoo dhimashadooduna ay ku tahay dhabarjab kooxda al-shabaab. hay-adaha amniga gobolka banaadir waxay u mahad celinayaan geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee helay xogta al-shabaab ee ku aadan dabargoynta ummadda Soomaaliyeed ugana hortagay si geesinimo leh isku daygoodii iyagoona xaqiijiyay awoodda iyo kartida ay u leeyihiin badbaadinta shacabka Soomaaliyeed kuwaasoo cadowgu gaarsiiyey jab xooggan oo aysan abidkoodii laabi doonin.